السلام عليكم وحن السلام يا أصحابتا مركا كوباد وحانهاي hooyadii labada ciyaalka yar ee TikTok la dhaxwaday xaqiiqadana ilaahay baa og ninkaas caruurtiisa markii hore isaga iga qaatay markii dambana social media isaga keenay waxaan igu kaliftay runta inaan sheego ciyaalka yarkii sidii aan waxba ogeyn ee la dhaxwado meesha marka koobaad waxa rabaa inaan ka hadlo waxaan xaqiiq ahayn ayuu ka sheegay halka dawladdiina uu iga gudbiyay inaan ahay hooyo xun arrimo badan ayaa jira isagii aniga noo dhaxeeyay laakiin ma rabin lifekeyga noloshayda inaan ka hadlo laakiin damba kaliftay waxa sheegaya markaa ilmahaygii in sidii la igu soo celin lahaa wadanka Jarmalka waan ka baxay hooyo xaamila baan ahay ilmo yar oo kale waan sitaa labada yararka maadaama gudbiyay hadeer in la idacweyn karo oo caruurtu dhan la iga xaabsan karo marka islaamka ilaahay waxa ka codsanaya ninkaas inta la hadlo in ilmahayga yaryarka uu ii soo celiyo qof waalana ma ihi qof xiska ka jirana ma ihi qof caadi ah oo fayo ayaan ahay wixii jiray oo dhan oo xaqiiqadana uu qariyay wixii dhan kaliftay in ilmihii inta iga qaado hadana waxaan rabaa xaqiiqada inuu qariyay oo xaqiiqadii oo dhan shaaha inuu sheegin waxaan jirin oo joogin sheego meesha la soo istaagay Soomaali Maxamed ilmaha hooyo tuurtay bas ilmo la tuurayna ma jirto ilmo kastaana hooyadii way jeceshahay yaa intii horena ana haystay anaana la leeleelay ana intaas oo dhan haystay marka waxaan rabaa xaqiiqadu waxay tahay mar rabo wali inaan indhaha shaaca ka qaado muhiimna iima aha muhiimadeedu waxay tahay sidii uu halka uga calaacalayay in ilmihii yaryara la ii soo celiyo oo meesha aan joogo la igu keeno inta bes aan rabaa muhiimadaan u soo galayna waa inta ilmahaagana gaal loo dhiibay ilmaha yararkaana gaala loo dhiibin sabab anu hooyo bilaadamiir ma ihi wali xiskeygiina waan qabaa waxbana ma qabi isagaan igu kalifay inuu ilmihi yar qaato khilaafkiisa iyo dibkiisana ka fadhiyi kar waayay hadeerna inuu isa soo gadiyo oo TikTok soo dhax fariisto isaga bilaabay Soomaali Maxamed aad iyo aad baan idin salaamayaa ciyaalka yararka qurquraha badan ma sha Allah waxa weeye gabadhii dhashay way tuurtay ha tuurta ma xumo gabadhii dhashay waxa ka sii daran taas waxa weeye reerkoodii iyo cid ay ka dhalatay ma la xiriiray kadibna waxay ugu yiraahdeen oo ugu jawaabeen war gabadhayda waad furtay anigana waxaan yaani aan kala hadlayay waxa weeye in ciyaalku maadaama ay igu qornaan ciyaalkanu midna igu qornaan aniga maadaama ay ciyaalkii igu qornaan aba inay mataqaana igu qorto aba yaani aba iyadu haysato taasan ka hadlayay laakiin wajiga waxaan kala kulmay ayadina saacad bay tirwaan tuuray mana ogola inay igu qorto mana ogola inay mataqaana ay qaadato marka waxa weeye waa nasiib darro hadda waxaan taagnahay aan booliiska hortoodii maadaama micni 48 saac ka badan ay maqan tahay oo ay ka maqan tahay iguna tiri ciyaalkii waan tuuray oo markii koowaad ma ahe waa markii saddexaad weeye inay saa uga dhaqaaqdo oo yaani familigeedu xitaa ay la og yihiinay waxaan sameeyay oo aan go'aansaday inaan booliiska la socodsiiyo arrinta way soo ku tahay barika malana la qabsanaya labadaydu waa mas'uuliyad darro ayaan qaadanaa waxay ka haysatay wiil hore u dhashay ee ka haysatay ay kaasoo ay ku andacootay kan ana dhalay waxa weeye mataqaanaa in adeerkay ayaana iga dhalay ay ku andacootay hadaba waxa weeye mataqaanaa nasiib darradu yaani aan anigu maanta la yaabanahay maaha gabadha waxa weeye nasiib darradu markii aan qoyskooda iyo reerkooda la hadlay waxay igu jawaabeen warniyow gabadha waad furtay war haddaan furay anigu waan reerkii la isku soo celiya ma wado aan mana u baahni aan laakiin muhiimadu waxa weeye ciyaalka ay dhashay ay haysato ay sanayn hadii ay tuuraso tii abooda ku qorto iyana micnihii gaala gacanta way gelinaya taas way iska indha saabeen run ahaantii de maanta xaalad halkaas ay maraysaa marka waxaan ka codsanayaa Soomaali weyn meel kasta joogtaan aynu hadda lisanada videogan si share qaraysta meel kasta joogtaan waxa weeye mataqaana meel kasta galiya Facebook iyo YouTube dhinac kasta galiya waxaan ka codsanayaa aan maadaama aan dalka Jarmalka joogo ما أقاني فاميليوم إنه شرعي هاي استمع أقاني عن
فاميليا شرعي هيستو أو ضد واوين وشرعي هيست هذه أتقرنا ثاني محمد عادل فريسابو هذه أتقرنا ثان وقصوا حراء هاي لسه حريرين سي أي هطيب النقطة على دعضين منه اللي يرهذا ورجال كذو كوا قرنا ولا قادنا يا سي أيجو أن أقول يجيو تاس أيان الكعد سنة يا أن وانا نسمع سؤال وين ملك ستاتشو ترى إنه بحاول أتقاعد ونسود عيال كثيرين يعني مركب وحنا نصيب درقة فيديو هرود دارني هاي وحنا نصيب درقة بحويه إن فاميلي دان أي كرة عن قبل إن عيالكي أين أبوهن كقرين أيدنا أين مني هيسن إن أي كرة عن ويسيدك كتبت أي تلاص مني تاسك سترة بحويه أورنا ويل حيد يعني أنا ومركز طبعا كلا لابني أنا أريد الدولة الأولى كلا لابني أورنا ويل حيد المكان اللي قاعد ويكسدي وأنا سببتها نقول لابني ما تقنا الدولة دينا أريد الله حسيسي ويا صوت كنت هاي وحالي كستو وبدأت هاي وليبة إنكو أي وضعتنا من شيء يعني كأي قعنت قوة دنا وإلا هنا ذير كي بايقد علينا لا يقعدوا كم تقنا علوش كسدنا أنت كده لسه السوق لبضتنا لقاته أيوة بدأت تدابا يقد هاي هذا يعني عاد بنسي شيء مدوم نيس الله بها بين هذا عاد وبين الصيحن والله ما ينصيحن هبينتي هذا تيرتأ maalintii ma ooyeyso ay waa caadi laakiin habeenkii oo dhan way soo kacaysaa oo 20 jeer bay kacaysaa maamay ku yani hadaaqayaan laakiin anigu sida uu sheegade sidee ku dhahaa maamadii waan suurtayaan bal yani sidaan u fahansiiyaan ciyaal wax weeye luuqadooda yaqaanaan way iska fahmi doonaan dabcan laakiin maanta taasoo dhan meesha ma taalo waa leeni tuuray hooyadin baa inay caday waa in tuurtay oo meesha ma taalo waxaaba yaala meesha oo reerkeedii iyo gabadhii aan ka kari la ah oo laga kari waayay waxa weeye war gabadhii micni ciyaalkaagina hadad ciyaalkaaga tuurtay aba aabahood ku qor aba adigu hayso aba aabahood ku qor aba adigu hayso wax ka dhaxayna ma jiraan mogtay illee ma taqaan isha yani waxa weeye ma taqaan Soomaalidu waxa ku maada dhagiya la waasha waansan كل بميشن سبب بقى كسعوتها يعني امتحان بقى أنا كسعودة ما قرن كرو لكن أنا أقول عيال كي جاين تانو دبر رضي كرايو وانو دبر رضي جايان هذا من اللابتن كسيدا من من يشجع يعني جاري كاسفاجن كاسفولا نورمال بيلتها وحويني لبقها أنت عملوا دلالي كرينا وانو دلالي يعني إن شاء الله لكن ده حوالي الدولة تنو مدة تبع سنتها أدونا مدة تبع سنتها مركب إلهي نمد بدبعسني هاي إلهي وحد بدبعسني كوين لكن إلهي كبار وروران ده واحد الله من قاعد يديقوا يعني ما تقنا إيش يعني عدو إسهال يعني أنا وانكو علينا يا إلهي كبار وروران كل ده عيالك هذه ما تلقاته ويوقف نهاي سنة وانك كرواي يقول قرنا وانك كرواي يعني وين السلامة يعني ملك استوجوك تاني تيشدوا عليه مركب حنا نصيب درقة فيديو